السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada janaalkeena Fason FX. Halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa kooraskeena cusub aan ku baran doono suuqa sarifka lacagaha qalaad ee Forex. Haddii ay tahay markii ugu horeysay ee booqashadaada waxaan kaa codsanaynaa in subscribe saartid, like iyo share commentina marnaba ha iloobin. Kooraskan waxa uu talagalnay isagoo af Soomaali inaan kusoo gudbino maxaa yeelay janaalku wuxuu ku jiraa isagoo English ku baxaayo. marka waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideysan doontiin. haddii aad u baahantahay isagoo English playlist aad ka fiirin doontaa qaybta beginnerka guud ahaan marka kooraskan intuu socdo waa kooras free maalin walbana waa idin soo upload gareyn doonaa muuqaalo oo ku saabsan barashada suuqa forex tradingka. markuu wuxuu intaan baran istiraatiijiyaddeena taasoo ah price actionka mid ka mid ah istiraatiijiyooyinka ugu wanaagsan ee hadda suuqan loo wada isticmaalo. ma jirto istiraatiijiyad xun balse qof walba istiraatiijiyad uu fahmo ayuu ku shaqaystaa suuqan forex-ka. intaan istiraatiijiyad iyo chart iyo suuqi aan u gudbin marka hore waxaa muhiim ah inaad fahanti ama concept guud aad ka qaadatay forex waxa uu yahay, qaabka uu u shaqeeyo, dadka ka shaqeysto, qaabkii lacag waxay tahay, erayada la isticmaalo. casharadaas oo dhan waxaa la dhahaa waa basic ama conceptiga. basic ama conceptigan casharadan ilaa iyo dhowr iyo toban cashir ay noo gaari doonaan hadduu alla idmo insha Allah. maalin walba isbuucii 2 maalin waa soo dayn doonaa hadduu alla idmo. kooraskeena koowaad ama cashirkeena koowaad ee kooraska aan ku qaadan doono waxaa la dhahaa hordhaca forex trading ama introductionka. muuqaalka marka ama cashirkan waxaa ku baran doonaa 3 qaybood oo ah waa maxay forex-ka iyo sida uu u shaqeeyo iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. qof walba oo jiilka hadda oo dhalinyarada Soomaaliga haddii uu forex maqlo su'aalo badan uu isweydiinaa. qof walbana wuu isku dayay balse in yar maane inta kale maba joogtayaan suuqan. maxaa yeelay 95 ilaa 90 boqolkiiba dadka suuqan soo galo way ku fail garowaan. sababta ugu horeysa waxay tahay qofka marka koowaad uu forex maqlo ama lacag waxaa soo dhacaysaba in lacag profit laga sameeyo, faa'iido waarin la sameeyo. sax lacag waa laga sameeyaa balse lacag qaabka aad u doonaysid iyo qaabka suuqa loogu shaqeysto ayaa kala duwan. halkan waxaa idinku fududeyn doonaa ama idinku wadaagi doonaa hababka ugu fudud, istiraatiijiyada ugu wanaagsan ee lagu baran karo barashada suuqa sarifka lacagaha qalaad ama forex-ka. maxaa yeelay waxaa jiro janaalo badan, waxaa jiro akademiya badan oo suuq soo gudbiyo oo ama cashira forex-ka iyo waxaas oo lagu barto. wax walba waxay ku xiran tahay qofka sida uu iska dhigo. haddii adiga shakhsiyadaada ay ka go'an tahay inaad waxaan baratay xirfad waayo oo lagu shaqeysto oo noloshaada wax badan ka bedeli doonto, welcome. haddii adiga faajo iyo lacag la sameeyaa sameey, wax soconaya maahan. marka waxaan isku dayi doonaa insha Allah sida ugu wanaagsan inaan idinku wadaago balid insha Allah. hadda waxaan ugu doonaa muuqaalkeen cashirkeen qaybtiisa koowaad oo ah forex wuxuu yahay, qaabka uu u shaqeeyo iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. marka koowaad forex iyo qaabka uu u shaqeeyo. horta forex-ka siisa waa 2 eray oo la isku keenay. labada eray oo 3 eray oo horeyso ah FOR waxaa laga soo gaabiyay foreign ama foreign waa wixii ka baxsan xuduudka wadankaaga wadamada kale xuduudka wixii ka baxsan waxaa la foreign ama qalaad. iidan EX-kana waxaa loo soo gaabiyaa exchange oo ah in wax la kala bedelo. marka micno ahaan waxay noqon doontaa waa hab lagu kala bedelayo lacag kale. marka forex-ka micno ahaantiisa waxay tahay inaad lacag ku bedeshid lacag kale. suuqan oo forex-ka waa suuq furan 24 saacadood shantii maalin ee isbuuca sababtoo ah weekendiga sabtiga iyo xadda forex market ma shaqeeyo oo ma furno. si aan u fahanno in lacag lagu kala bedelo lacag process-kaas marka yaa ka qayb qaadanaya. process-kaas waxaa ka qayb qaata dadka dalxiisayaasha dadka international trade-ka iyo commercial-ka ay qayb qaadanayaan. tusaale kale hadda inta waxaa noogu muuqdo sawir qof taagan. tusaale waxaa soo qaata adiga inaad tahay adduunyadeedana waa tanaa lacagay isticmaalayeen. marka waxaa ujeedaa lacagtan oo buluuga lacagta oo trade pound, lacagtan raamadan dollarka cagaarka Mareykanka USA, guduud xigeenkaanne waa euroga halka lacagtan kale way tahay yeenka.
marka tusaale oo kale waxaa ka soo qaadaa adiga tahay ingiriiska ku nooshahay marka ingiriiska ku nooshahay waxaa waajib ah inaad isticmaashay lacagta pound-ka maxaa yeelay dadka daraaciisii cunto hadaa cunaysay hadaa fee bixinaysay wax walba waxaa loo bees garaynaa lacagta pound-ka inaad ku bixisay adoo lacagtii pound-ka oo ingiriiska joogay ayaa waxaa damacday inaad ganacsi ama dalxiis inaad u aadi dalka Mareykanka oo soo baxday Mareykanka ay maantay the first time transaction-ka koowaad meesha uu ka bilaabanayo waxay tahay waa airport-ka so uu bilaabanaa marka airport-ka USA ka soo degtay waxaa waajib ku ama muqadas ku inaad lacagtaadii ingiriiska ahayd aad u bedeshay lacagta Mareykanka oo aad qaadatay lacagta USA sababta u sameynaysa waxaa waaye hotelka aad degaysa lacag USA ka rabaa dollarka ka rabaa baska raacaysa lacag dollar ka rabaa dadka raacaysa lacag dollar ka rabaa maqaayada fadhiisanaysa lacag dollar so marka waxaa waajib ku lacagtii pound-ka inaad ku bedelatay lacagtii USA-da taasaa marka waxaa lahaa foreign exchange transaction-ka qaabka soo dhaca waxa lacagta laga sameeyaa waxay tahay transaction-kan labadan ka dhacayo ayaa lacagta lagu sameeyaa rate-ka lagu kala bedelayna wadan walba dowladiisa ayaa maamusho ama go'aamiso rate-ka lacagteeda loo bedelayo lacagta kale tusaale labaad waxaa joogtay dalka Mareykanka waxaa ka soo kacnay ingiriiska Mareykanka kacina waxaa ka yana Europe ama Eurozone-ka waa wadamo badan oo Europe ay ku midaysan yihiin soo marka Mareykanka kacday waxaa aaday wadan Europe ka mid ah tusaale kale Faransiiska ama Germany aad soo marka Faransiiska iyo Jarmalkii waxaa laga isticmaalaa lacagta euro-ha in waxaa way lacagta dollar-ka soo marka airport-ka ka soo degtay waxaa waajib ku inaad lacagta dollar-ka ku bedelatay lacagta euro-ha soo markaas rate-ka transaction-kaas dhacay ayaa forex ka shaqeeya lacagta rate ee ka sameynaya meesha rate-kaas loo kala bedela soo marka qofkan dalxiisaha ama qofkan ganacsada lacagta uu bedelo oo euro markuu ma sababta waxaa waaye area-daas uu joogo lacag dollar laga isticmaalo taxiga ma isticmaalo ninka oo maqaayad ma isticmaalo hoteelihii ma isticmaalayo wax kasta u baahan tahay waxaa waa lacagta euro-ha soo marka guud ahaan marka waa sarifka lacagaha qalaad in lacag lagu bedelo lacag wadan kale ay leedahay rate-ka lagu kala bedelayna qof magooye ee wadan walba dowladiisa ayaa gooso lacagta lagu kala bedelayo haddii hore u socono su-aasha kale oo muhiimka qofka inuu fahmo waxay tahay maadaama aad doonaysa inaad horta suuqan forex-ka aad ka shaqeyso ama inaad lacag ka samayso horta marka waxaa u baahan tahay maadaama aad fahantay micnihii qaabkii transaction dhacayo xilliyada oo suuqa furan yahay iyo maalmaha uu furnayn su-aasha kale oo u baahan tahay waxay tahay war adiga soo gashay yaa kaloo suuqan kuula jiro iyo sababta ay ugula jiraan maxay tahay kow afar qolaa ku jirto dad qaar ay shan meel qaar waa artikalada way kala duwan yihiin laakiin afartana ugu caansan kow horta waxaa waaye suuqan waa central banks ama iyada dhexe ee dowladaha ay leeyihiin maxay sababta ee central banking forex-ka ama playmaker-ka u yihiin ee suuq u dhaqaajinaya maxay tahay saawad ognahay wadan walba dowladiisa waxay leedahay lacag eeda u gaara lacagtaas wadankeena waxaa maamula central banking wuxuu ku maamulaa monetary policy qaab oo lacag loogu talagalay soo marka bangigii oo wadankaas suuqa inuu ku jiro waxaa ku qasbayo inuu ilaaliyo lacagta wadankiisa qiimaheeda maxay isaga rate soo saara interest rate-kii inflation-kii CPI-da waxyaabo badan oo sameynaa reason-ka ugu weyn marka waxay tahay in uusan wadankiisa qiimihii lacagtiisa inaysan suuqa hoos ugu dhicin qiimo la-aan ay ku dhicin sidaas darteed central bankiga suuqaana ugu shaqeynaa labaad waxaa la dhahaa suuqan ka shaqeysato waa bankiska ama private bankiyada aan dowladda ahayn maxay ayaga ugu sameynayaan private bankiga maxaa yeelay bankiisa wada ognahay qof walba lacag u dhigtaa lacagtii markaa bankiga la dhigto bankiga isaga wuxuu u baahan yahay inuu lacagtii wax ku invest gareeyo ama wax ku bankiga kaliya ma isticmaalo forex oo kaliya waxyaabo kale oo isticmaalaa ama inuu dhul geliyo ama inuu dad investment ugu sameeyo so anay meeshan ku sii waxay tahay forex-ka area sanabsan soo marka bankiska marka sababta uu suuqa ugu jira waxay tahay lacagihii dadka uu soo qaado uu haayo in uu dad xirfad suuqa u leh oo shaqaaleysiisto oo bankiga gadaashiisa ama maxaa la behind-iga
كشقاية وسوقا بلايميكر كسمية والعكتي برمل وضو اسوا marka ee bangiga lacag uu sameynaya faa'iido maxay lacagtu iska hay hadii lacagtu meel iska taalo lacag ma galayso maxay bangiga saa okay building qurux badan oo dunya kiro bixiya shura laga qaada ama intuu ka keenaa marka haduusan lacagtu ku shaqeynin meel uu ka keenaa malaha qodobka saddexaad waxaa la corporations waxaa waaye oo multiple company oo company weyn soo marka corporation kan ama bangiga companiyada waaweynka ay sababta ugu jiraan marka waxay tahay inay faa'iido ka sameeyaan as a business ugu jiraan inay suuqan lacag ka sameeyaan si ugu sameynayaan sidoo kale ayagana waxay sameynayaan dad xirfad leh ee suuqan ee lacag waali u dhiibayaan lacagahaas marka dadkaas ugu shaqeynayo sidaas ay marka waxay ku sameynayaan profitka sababta ugu weynna waxay tahay in haddii beri ka maalin company-gan ama company-ga weynka waxyaalaha uu ku shaqeeyo businesskiisa haddii oo suuqa hoos u dhac u imaado ama arrimo oo maxaa la dhaqaale ay soo wadaagto in faa'iidooyinkaas uu ka sameeyo inuu ku kabto qolada ugu dambaysan waxaa lahaa oo suuqan ka shaqeeyo waa retail traders waxaa waaye waa sidaad sawirka muuqato waa qof shakhsi oo keligiisa shaqeysanayo sababtan waxaa waaye waa aniga ama adoo kale maxaa yeelay suuqa marka koowaad looma ogoleen dadka retailerska maxaa yeelay dadkan waaweyn oo keliya ka shaqeysan jira markii dambe teknolojiyadan iyo waxyaabahan ayaa u fududeysay in dadka retail traderska inay suuqan ka shaqeysan karaan maxaa yeelay adiga shakhsiyaad tahay adiga si toos ah suuqii playmaker muu noqon balse waxaa maray chain ama broker ya maray soo marka waxaa ku sameynay suuqan ugu shaqeysanay waa aniga iyo adoo kale suuqa ugu shaqeysanay mawduuceena qaybtiis saddexaad waxaa ka mid ah wax walbo waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaare leeyihiin marka haddii ani ogaaday forecastka wuxuu yahay qaabku u shaqeeyo laba waxaa ogaaday dadka ka shaqeeyo iyo sababta ugu shaqeeyaan marka waa inaa ogaadaa haddana faa'iidada ay leedahay suuqan forecastka yacni ay leedahay kow waxaa ka mid horta waa low transaction cost alashaan qiimo yar waxaa ku bilaabi kartaa forecastka markaa bilaabaysa ma lagu dhahayo waa inaa haysataa lacag 10 kun waa inaa haysataa lacag 20 kun waa inaa haysataa lacag 50 kun ma jirto transactionka lacagiis ayaa ku bilaabi doontaa inaa lacag ku bishi lacag kale sidoo kale faa'iido uu leeyahay waa suuq furan 24 saacadood waa suuq furan 24 saacadood 24 saacadood adigu waxaa laga yaabaa inaad tahay qof mashquul badan ama waxaad tahay arday jaamacad xilliye qaar heli karina jirto fursad laakiin xilli kale fursad heli karto kale subaxii waa baxdaa 6kii waxaa aadaa waxbarasha bilowdaa isku diyaariskeedii waxaa kasoo dhamaadaa 8 marka 8 karto dhamaado inta waqti soo hartay suuqan furan yahay wuu furan yahay maxaa yeelay suuqan waa suuq furan 24 saac waxaa laga yaabaa inaad 8 saac ama 9 saac inaad shaqo gashay inta ka horeyso waa ka shaqeysan kartaa faa'iidada saddexaad oo leeyahay waxaa waa leverage waxaa lahaa waa capacity ama awood waxaa lagu siinaa lacag akoon ku shubatay siday $100 tahay lacag leverage lacag akoonkaaga lacag ka badan oo kale u dhiganto aa lagu siinaa si maxaa la dhahaa oo akoonkaaga xoogaa isku celiya faa'iidada labaad oo afraad oo leeyahay waxaa ka mid ah waa trading options alashaan qofka forecastkan ka trade gareynayo inuu leeyahay optiono kala duwan oo ma jirto ma lagu dhahayo haddii aad doonaysid inaad meeshaan ka shaqaysay ama suuqa aad ka shaqaysatay waa inaad taqaanid strategy X ama strategy xalla way ma jirto iyo option ka adaa iskale strategy afaanti aad ku xirsan doontaa xilli aad doontid ayaa shaqayn doontaa maalin kale ayaa shaqayn doontaa so ma jirto wax oo muqaddasa ama waajibe oo lagu dhahayo waa inaad maxaa la dhahaa optionkaas iyo optionkan inaad isticmaashaa ma jirto guud ahaan marka muuqaalkeena koowaad intaan ayaa kusoo koobi doonaa waxaan rajeynaynaa muuqaalada kala socon doontii waxaan ka codsanaynaa haddii aad tahay markii ugu horeysay ee booqatay janaalkiina inaad subscribe saartay like iyo share iyo commentine annama ka iloobo waxay rajeynayaa nasiib wacan iyo guulo badan inaad suuqan ka wada sameyno welcome to Fasuna Fitness. Thank you.
السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada saaxiibada halkaa naga daawanaysaan waa janaalkeena Fasoon FX haddii ay tahay booqashadii ugu horeysay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarta si aad ugu soo mid noqotid like iyo share iyo commentina ha marnaan sidoo kale waxaa aad ugu mahadcelinayaa saaxiibada ugu dambeeya 24 saac ugu dambeeya nagu soo biiray waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada Fasoon FX halkan waxaan kusoo gudbinaa xirfad kamid ah xirfadaha loogu shaqeysto online-ka ama internet-ka xirfadaas oo ah forex-ka cashirkii ugu horeeyey sida ugu kala celiseen iyo sida maxaa la daawasho fiican u gaarsiiseen aad iyo aad ayaan idin mahad celin doonaa cashirkii ugu horeeyey waxaan kusoo baranay horbaxa forex-ka iyo dadkii ka shaqeeyo iyo maxaa la dhahaa wixii hordhays ku saabsanay muuqaalkeena xiga ama cashirkeena xigana wuxuu noqon doonaa inaan kaga hadalno forex terminology-ga ama eray bixinada suuqa forex-ka wada ognahay eray bixin waxaa waaye waa meel walba oo la joogo ama fildi walba oo laga shaqeynayo waxay leedahay erayo u gaare oo la isticmaalo haddii aad dhakhtar tahay ama dhakhtarad aad tahay waxaa jira erayo u gaare dhakhaatiirta iyo dadka isbitaalada ka shaqeeya haddii aad engineer tahay sidoo kale haddii aad tahay photographer ama editor oo kale so fildi walba oo fildiyada kamid a la barto waxay leeyihiin erayo u gaare so marka muuqaalkan waxaa ku baran doona ama cashirkeena labaad eray bixinada suuqa forex-ka haddii aan hore ugu sii socono waxaan ku baran doonaa dhowr eray bixinood oo ugu muhiimsan marka aad ka shaqeynaysid suuqan forex-ka eray bixinada marka waxay erayada ugu badan ee maskaxda kusoo noqonaya aan marnaba ka hareyn waxaa kamid ah currency pairs bid bid and ask price spread leverage margin lot size and long short position intaan waa ereyada ugu muhiimsan oo maanta oo dhan la isticmaalo intii aad ku guda jirtay forex-ka mid mid ayaa u sharxi doonaa mid mid ayaa u qaada dhigi doonaa insha allah fadlan nala soco qodobka koowaad oo ah currency pairs currency pairs waxaa waa horta currency waa lacag pairsna waxaa waaye waa wax walba oo ah hal shay laakiin laba iskula socdaan beer waxaa waa tusaale oo kale kabahoo kale hadda hal joog hadaa rabti laba xabo waaye halka bis ma lagaa iibin karo ama bidix ama midig ma lagaa iibin karo so marka haddii bidix haysatid kab oo beera ma haysatid waxaa haysataa kab caadi a haysataa so marka waxaa u baahannahay marka inaan horta fahno currency pairs waxay tahay currency pairs waxaa waaye waa laba lacagood oo laisku aadinayo tusaale oo kale lacagta sawirka inta noogu muuqdo waa lacagta yuuraha iyo lacagta USD-ga lacagta yuuraha waa lacag laga isticmaalo wadamada eurozonka ama euro areada wadamada ku midaysan midowga Yurub iyo lacagta USA-ga so marka markii lacag labadan lacagood isku maajgareeyo oo isku aadi waxay noqonayaan beeray noqonayaan so marka markii la akhrinayo laba qaab loo akhriya lacagta oo ah kan koowaad waxaa la dhahaa base currency kan labaadna waxaa la dhahaa code currency so marka waa beerka koowaad iyo beerka labaad marka currency pair maxaa waaye macna ahaan ama English haddii aan akhrino waa the exchange of one currency margin up against another lacag oo lagu bedelayo lacag kale oo laisku aadinayo so marka that's waxaa la currency pairs inta badan marka forex ku jirtay currency pairska mar walba waa maqlaysaa qaabka loo akhrinayo waxaa waaye base currency iyo code currency halka lahaa waa lacagta koowaad iyo lacagta labaad terminology ama erebixintan ugu xigto kale waxaa la lahaa dib dib maxaa waa horta waa saddex eray oo lasoo kaabiyey dib horta maxay u taagan tahay percentage in bounty bida koowaad oo ah percentage ayada oo in ah iyo bountiga waxaa loola jeedaa bib waxaa waaye waa briceka meesha uu ka dhaqaaqo bountiga uu ka dhaqaaqo ilaa iyo bountiga kale uu tagay inta u dhaxaysa waxaa lahaa bib waa the measurement used to express the difference in the value of two currency waa farqiga in lagu muujiyo qiimaha u dhexeeya laba lacag oo ah dib bountiga pricekan uu ka kacay ilaa iyo bountiga kale uu priceka gaaray inta u dhexaysa waxaa lahaa bib value tusaalaha waa arki doonaa hadda inta waxaa noo taala laba lacagood lacagta euro USD-ga iyo USD JPY oo ah lacagta Mareykanka iyo lacagta Jabaneeska inta waxaa noo taalo
tusaale oo kale bibka marka la xisaabayo laba qaab aa loo xisaabaa. labada qaab oo loo fiirina waxaa waaye horta marka koowaad waxaan ka bixinay lacagta aa isku manage garaynaysa ama beerka ay haysatay haddii ku jirto lacagta jabaanka waxaa isticmaalay two decimal aa loo isticmaala oo ah tirada boqolleyda oo tobanleyda oo ah iyo jableyda oo ah laba god. hadoo kale godka koowaad iyo godka labaad kaasa marka waxaa la dhahaa markii lacag allaa lacagta oo jabaan lagu bedelayo ama lagu kala sarifayo ayada waxay noqonaysaa godka labaad ay noqonaysa. halka lacagaha kale oo kasoo haran ay noqonayaan godka afraad four decimal. godka koowaad, godka labaad iyo godka saddexaad godka afraad oo noqonaya. inta lacag oo kasoo hartay oo jabaanka markii lacagaha ee la socoto maana inteeda kale waxaa loo isticmaalaa four decimalka. si aan u fahanna marka bibka wuxuu yahay oo aan ku sheegnay priceka meesha uu ka kacay ilaa iyo meesha uu tagay inta u dhexeyso ayaa waxaa lahaa bib. tusaale soo fahmin marka koowaad waxaa fahmi doonaa ayadoo four decimalka ama lacagaha aan jabaneeska ama yeenka aan la soconin. tusaale oo kale haddii priceka uu ka dhaqaaqo 1.1025 uu tago 1.1035 waxay noqon doontaa 10 pips oo ah suuqan kor ayuu kor u kacay qiimahan rate ama exchange-gan labadan lacagood ayaa kor aaday. sidee marka 10 ay ku imaatay waxaa la sameynaa labada god ee ugu dambeyso iyo labadan god ugu dambeyso ayaa la kala jaraa. saawad ognahay wuxuu ka dhaqaaqay ama bounty uu ka kacay waxay ahayd 1.1025 wuxuuna tagay 1.1035. labadan digit ama labadan number ugu dambeyso iyo labadan number ugu dambeyso ayaa la fiirinaa farqigooda 25 oo ka kacay 35 oo tagay. it means waxaa waaye 10 ayuu kor u aaday markaasuu bounty uu ka baxay waxay ahayd 25 bounty uu tagay uu ku imaadan waxay ahayd 35. so waxay ku tusaysaa marka in qiimahan ama lacagtan ay kor u kacday 10 bib. tusaalaha kale waxaa tusaalahan koowaad wuxuu ku muujinaa in priceka uu kor aaday oo qiimihiisa kor u kacay. haddii marka priceka uu ka dhaqaaqo 1.1035 oo uu tagay 1.1025ka ayadana waxaa waaye pricekii bountiga uu joogo waxay ahayd 1.135 wuxuu imaaday 1.125 oo ah 10 bib ayuu suuqan hoos u soo dhacay ama hoos u soo aaday. soo marka taasaa marka waxaa lahaa bib oo ah priceka qiimihiisa bountiga uu ka kacay ilaa iyo bountiga kale uu gaaray inta u dhexeyso ayaa waxaa la dhahaa bib. bibkaas marka waajib maahan inuu kor wada aado ama kor u aadaa ama hoos u aadaa. si laba tusaale noogu cad annagoo isticmaalnay 25 ilaa iyo 35 marka la kala jaro 10 bib oo ah increase uu sameeyey halka markuu priceka uu 35 kasoo dhaqaaqay uu imaado 25 wuxuu sameeyey 10 bib oo decrease. haddii priceka hadda 35 markuu ka kacay uu tegi lahay 50 oo kale 40 oo kale 40 oo kale hadduu tegi lahaa waxaa dhihi lahayn 5 bib ayuu suuqan kor usii kacay. ayadoo marka waxaa xisaabeynaa two decimale ama jajabka oo labada gode. haddii sidoo kale pricekii rate labada digit ugu dambeysa la kala jaraa. haddii priceka uu ka kaco 106.2 eber oo uu tago 106.4 imise ayuu suuqan kor u kici karaa 20 bib iyo kor wada. maxaa yeelay 20 laga kacay waxaa la tagay 40 kor waxaa loo aaday 20 bib. cagsigeeda haddii suuqa uu 40 joogo priceka bountiga uu maray hadday 40 ahayd uu 20 soo aado oo hoos u soo dhaco imisoo hoos u soo dhaco suuqan 20 bib. soo marka waxa lagu xisaabtamaayo waxay tahay imise bib ayaa ani suuqan kor ii aaday ama imise bib ayaa suuqan ani hoos u soo aaday. marka hoos socotay hoos u soo aaday waxaa dhigi kartaa meeqa biba ani hoos u soo aaday 20 30 50 40 60 boqol bib waxaad ka heshay. taas waa bibka
terminology nooxigana waxaa waaye waa bid, ask price and spread. Bid price-ka, the bid price is the price a forex is willing to sell a currency pair. Asking price is the price a trader will buy a currency pair. The difference between asking and bid is spread. Tusaalaha hadalka Ingiriiska waxaa kaga fudud image-ka ku fahmi doontaa. Bid waxaa waaye mar walbo uu qofka oo forex-ka ama trader-ka uu isaga soo iska iibinayo wax. Adiga markaan lacagtan waxaa rabtaa inaad iska iibisid. Markaas waxaa noqonaya bid aad tahay. Haddii adiga aad lacag soo iibsanaysid waxaa waaye ask waaye. So marka labadan marka bidkan ujeedaada aski waxaa waaye waa buy, adaa wax soo iibsanayso ya. Halka askiga waxaa waaye marka adiga buy aa wax soo iibsanayso. Halka bidka ee tahayna sell marka adiga wax iska iibinaysid. So marka farqiga labadan u dhaxeeyo ayaa waxaa la dhahaa spread-ka. Waqtigiisa lacagta waa kana currency pair. Askiga waxaa waaye lacagtan marka adiga aad iibsanayso waxay tahay 1.1335 oo laba saaran tahay. Spread-kaas kanne 0 saaran. So marka labada marka la jaro 0.2 saaran. Haddii inta wax kale number kale waxaan lahayd difference number kala soo bixi lahayd. Spread waxaa la dhahaa ask price kan iyo bid price kan. Qiimaha aad wax soo iibsanaysid iyo qiimaha aad ku iibinaysid farqiga u dhaxeeya ayaa waxaa la dhahaa spread. Next qodobkan waxaa waaye waa leverage iyo margin. Leverage waxaa waaye waa awoodda qofka wax iibinaya ama iska iibinaya akoonkiisa oo loo siinayo awood oo kale. Leverage horta waxaa bixiya broker bixiyo. Brokerka marka wuxuu ku siinaa lacagta aad haysatid lacag u dhiganto oo aan suuqan ugu kala gareyn kartin ayuu ku siinaa. Wuxuu ku siinaa si maxaa la dhahaa aadan u dareemin in akoonkaaga ay ku jirto lacag yar oo aadan niidinin. Brokerada marka way kala duwan yihiin. Leverage kala duwan ay bixiyaan. Kuwa waxay bixinayaan 13, kuwa 14 bixinayaan, kuwa 15 bixinayaan. 13 marka maxaa laga wadaa haddii akoonkaaga way saddex jibaarayaan oo kale. Haddii akoonkaaga ay $100 ku jirtay oo brokerka aad iska diiwaangelisay ama brokerka aad lacagta ku shubato oo ku siiyo 13 maxay u dhigantaa inuu ku siinayo lacag u dhiganto oo kale 300 oo kale. Hadda inta waxaan ugu taa leverage-kan oo brokerka bixinayay 100 oo ah markii 100 marka lagu dhufto 100 inay noqonayso 10,000 oo lacag u dhiganta camal ayuu ku siinayaa broker si ah ugu shaqaysatay ama awood u yeelatay inaad trade qaadato. Margin maxaa la marka margin waxaa la lahaa markii aad u baahan tahay inaad trade qaadatay inuu kuu sheego trade-kaas inaad qaadan kartid inaad qaadan kartid. Haddii lacagta aad haysid hadday yar tahay oo kale aad rabtid inaad trade-kaas lacag badan aad ku furatid wuu kaa diidaa. It means wuxuu ku leeyahay ma kugu filno. Marka margin waxaa waaye wuxuu awood kuu siinaa inaad adiga aqoon inaad trade aad furan kartid qiimaha aad ku furayso inuu kuu sheego. Inaadan maxaa la adoo akoonkaaga $100 ku jirto haddaad aadid 10 lood aad ku fura oo kale. So marka margin-ka markaas lacag kugu filan maysid. Tusaale oo kale marka leverage-ka tusaalihiisa arkayna. Let's say adan akoonkaaga inay ku jirto $1 oo kale capital. Haddii leverage-ka uu ku siiyo 10 to 1 you can open a position size for 10,000. Ayla 1,000 ay start 10 oo ku siina waa ku dhufanay 10 kuna ku noqonay. Haddii marka leverage-kaaga uu ku siiyay broker-ka ay tahay boqolkiiba hal عشان 100 waay. عشان haddii akoonkaaga aad $100 ku shubatay oo isagana ku siinayo 100 it means waxaa waaye 100 kuna haysataa. Alashan 100 kun size ama la furan kartaa akoonkaaga ku siin karaa. Lot size maxaa la lahaa lot size ayada waxaa waaye waa lacagta aad ogashahay inaad dealkan aad ku gashay trade-kan oo kale oo adiga aad ogashahay inaad lacagtan ku faa'iido. Lotka sidiisaba 4 qaab loo qaadaa waa mid standard iyo mini iyo macro iyo nano. Nano waa midka ugu yar, micro waa midka iska medium-ka oo hooseeya
mini iyo standard. Standard waa midka waaweynka oo adiga $1 $10 waxyaalahaas oo lodkaas mid walba oo tusaalihiisii waa arki doonaa. Tusaale kale inta lodka maxaa lagu dhahay, for example you wanted to buy a standard a lot of 1,100 units of JBP USD. Exchange rate is 1.24, meaning you will buy USD 1.24 1 British pound. What will happen is that will you purchasing 100 pound, 100,000 pound with 124,000 USD dollar. عشان waxaa waaye lodka lagu sheegaa haddii lod aa ku gashi oo ah 100,000 oo unit 1.24 ka maxaa waa rate markaas labada lacagood lagu sarifayo. haddii marka u baahan tahay inaa bixisi 1.24 for 1 British pound, haddii aad rabti halkii pound inaa USD ku bedeshi waa 1.24 aa hele. maxaa dhacaya marka haddii barjeska ay iibsanayso 100,000 oo pound aad rabti inaad dollar qaadato, waxaa bixinaya markaas 124,000 oo dollar, 124 lacag u dhiganto ayaa helaysaa. kan ugu dambeeya ah long and short position oo ah terminology ugu dambeeya ama erey bixinta ugu dambeeya. long and short position ayaga waxaa loo fiiriyaa waa market direction ah suuqa meesha uu u socdo inaad sheegto. sidaba forecastka markii directionkiisa ama trade la furayo kale laba meel loo furaa, ama inaad tradeka buy u furati ama inaad tradeka sell u furati, ama inaad trade kor u socdo aad raacisninka ama trade hoos u socdo aad raacisninka. longii marka macnaheed maxaa waaye ama inaad buy samaynaysa ama bullish market oo ah markaas suuq kor u socda aragtay adina waxaa u raacday kor. shortigina waxaa waaye inaad sell samaysay ama bearish market inaad samaysay. aad ugu mahadsantihiin dabashada muuqaalkan. fadlan waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay marka ugu horeysay booqashadaada inaad subscribe share like iyo share iyo commentina ha ka iloowin. aad ugu mahadsantihiin. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري وهذا جنال كنا في سون افكس هديت طيب بوقتي كوات فلما حكا عوصل ان انا سبسكرايب لايك شير كومنت اثارتي halkan waxaa kusoo gudbin doonaa taxaniinii saddexaad ee inoo socday barashada suuqa forex-ka qaybtiisii saddexaad ama cashirkii saddexaad. cashirkan saddexaad waxaa uu hadli doonaa currency pairs ama lacagaha suuqa forex-ka looga shaqeysto. maadaama hore aan usoo aragnay hordhacii forex-ka wuxuu yahay aan cashirkii labaadna aan ku aragnay erey bixinada aan loo isticmaalo suuqa forex-ka, waxaa muhiim ah qofka inuu haddana fahmo lacag waxa ay tahay iyo lacagaha nooca ay tahay inuu kala fahmo. lacagaha suuqa forex-ka waxaa loo kala qaadi doonaa saddex lacagood oo ah major, cross iyo exotic. so mid walba waxa ay tahay tusaalaheeda kusoo qorti doonaa. currency pairs ama lacagaha sideeda waxaa u kala qaadanaa saddex, waa major iyo cross iyo exotic. major currency maxaa la lahaa waa lacagaha oo beeskoodu yahay ama lacagaha uu u socdo dollarka. crossna waxaa la lahaa waa lacagaha aan la soconin dollarka. exoticna waxaa la lahaa waa lacagaha dowladaha hadda soo koraayo. mid walba tusaalaheedan arki doonaa. major currency-ga waa kuwan, waa lacagaha waaweyn oo la socdo USD. mid walba ujeeda ama USD ugu horeyso oo dollarke ama waa ugu dambeysaa. so marka kan lacagti waaye euro USD, kanne markii loo soo gaabiyo nickname-kooda ama naynaaskooda waaye euro USD. waa lacagta eurozone-ka iyo lacagta United States ama US dollar. markaasoo kale nickname-ka maxaa la euro dollar aa la lahaa. mar walbo USD-ga ayada nickname-keeda dollar ay noqonay. so marka lacagtan kan loo pound USD waa nickname-kooda. markii la akhrinayo JBP USD waa nickname-kani pound dollar waa. so bracket-kan wuxuu ku tusaa lacagtan nickname-keeda ama markii lasoo gaabiyo magaca loogu wacayo. AUD USD oo ah Aussie dollar waa lacagta Australian-ka iyo lacagta Mareykanka oo isku sarifayo. NZD USD oo ah New Zealand-ka iyo lacagta United States oo isku sarifayo. markaas maxaa loo soo gaabiyo nickname-keeda waxaa waaye Kiwi dollar aa la lahaa. USD CHF USD qof walba wuu garanaya waa lacagta United States ama dowladda Mareykanka. CHF-na waxaa waa lacagta Switzerland ama Swiss-ka. USD JPY oo ah dollar yen maxaa waaye waa lacagta Mareykanka iyo lacagta Jabaneeska. USD CAD
USD waa lacagta Mareykanka halka CAD-na ay tahay lacagta Canada maxaa la dhahaa dollar loonie so marka JBP-na waxay u taagan tahay lacagta Ingiriiska Euro-na maxaa waaye lacagta Eurozone-ka so Eurozone Ingiriiska Britishka Australia New Zealand CHF oo ah lacagta Switzerland-ka JPY oo ah lacagta Yen-ka ama Japanese-ka CAD oo ah lacagta Canada oo ah loonie so major currency-ga oo ujeedin calaamad ahaan lacagta Euro-ha ee Mareykanka Ingiriiska Mareykanka iyo Japaanka Mareykanka iyo Switzerland-ka Mareykanka iyo Canada oo Australia iyo Mareykanka New Zealand iyo maxaa la dhahaa Mareykanka so kuwaas waxaa la dhahaa waa major currency-ga waa lacagaha ugu badan ee suuqa ugu waaweyn ee loogu shaqeysto forex-ka waa ilaa iyo 1 2 3 4 5 6 7 ilaa iyo 7 lacagood waaye guud ahaan markii la isku soo dardaro suuqa forex-ka lacagtiisa waa 8 lacagood marka 7 hadday ka noqotay 21-kooda kale la isla fiirina qaybta kale xigta waxaa la dhahaa process currency waa lacagaha aan la soconin non-USD dollar علشان lacagahan oo beerbeerka la isku saarayo wax dollar mala socdo waa lacagihii oo dollarka la socday oo ayagii isku maajgareeyay intoo kale marka waxaa noo taalo lacagaha waaweyn ee majorka Euro-ha Yen-ka ama Japanese-ka Britishka Canada Australia New Zealand waa major currency isla iyagii ayaa waxaa la isku sameynaa oo la isku maajgareynaa tusaale oo kale hadda Euro oo kale Euro JBP Euro CHF Euro CAD Euro AUD Euro NZD Euro JPY so marka trade gareynaysa ina lacagtan aad trade gareysmaan kuwanba waa ku trade gareyn kartaa Japankan sidoo kale CHF-kan hore u socda waa lacagta Switzerland-ka Japanese-ka dhammaantood marka waxaa la cross currency-ga waa lacagaha aan la soconin Mareykanka qaybta ugu dambeyso waxaa la dhahaa exotic currency exotic waxaa waaye waa lacagaha dowladaha hadda soo korayo oo kobaca dhaqaale ay sameynayaan waxaa ka mid Euro Turkish ama Turkish Lira waxaa ka mid USD SJD oo ah SJD-ga waxaa waaye waa Singapore dollar-ka USD HKD oo ah Hong Kong lacagta Hong Kong dhammaantan wadamadan waa wadamada soo korayo USD SAR oo kale waa South African rand oo kale USD SEK oo ah Swiss crown USD NOK oo ah Norwegian crown so intaan waa lacaga dowladaha hadda soo koraya inta badan dadka bilowga ama inta badan suuqa forex-ka dadkaas isticmaalaan oo dad gaar ah oo kaliya isticmaalaan laakiin waxay ku muujinay in lacagahan balo oo transaction ka dhaco oo la isku helo so marka muuqaalkeenii taxanaha iyo qaybtiisii saddexaad maanta halkaas ayaan kusoo koobaynaa haddii ay tahay booqashadaadii koowaad fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe like share comment asaati sidoo kalena waxaa lagaa codsanaa casharada sida iskugu xigaan inaad u daawatid haddii aadan ku hor soo daawanin fadlan dib ugu noqo cashir koowaad السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابي بحرين دنامكين فصون FX سودوادا هذا وما سنتين دمانتين سيدا قروح بدان وعلى سعودين عشرة سيدا مرول باوشو شركلينيسين وخالك سيوغار أصحاب بدان سيدا وغي قادنيسين كوبعا أما كريمة جنالكا آدي ومدعلينيا سيدا وقالي وحا آدي ومدعلينيا سيدا quruxda badan ee afkaartiina ay fikradiina oo soo bandhigaysiin oo qaybta commentiga ay ula wadaagaysiin ayadana aad iyo aad ka mahadcelin doonaa sida wada ognahay waxaynu socday muuqaalkeenii ama korsigeenii taxanaha ahayd ee barashada suuqa forex-ka cashirkeenii afraad ayaa maanta qaadan doonaa oo alla idmo waxaan kaa codsanaynaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad nagu soo biirtay janaalka haddii aad tahayna saaxiib hore noola joogna waxaan kaa mahadcelinaynaa sida mar walba ay noo taageertay ay noo support gareysay si janaalku u gaaro asxaab badan fadlan marka waxaa kaa codsanaynaa maadaama wankeygii oo inooga dhiman yahay wax yar inaa inoo share gareysay si uu u gaaro asxaabo badan maanta taxanaheena afraad waxaan ku qaadan doonaa qaybteenii afraad oo ah forex trading sessions ama suuqa sarifka lacagaha qalaad suuqyadiisa kala duwan iyo xilliyada suuqyada ay shaqeeyaan siday u shaqeeyaan
sahar usoo baranay saddexdii muuqaal ee ugu dambeeyay ahayd hordhacii forexiska ereybixinadiisa iyo lacagtiisa. Haddan waxaa baran doonaa ama fahmi doonaa sessionska suuqyada ama xilliyada uu suuqan furan yahay oo laga shaqeysto. Waayo haddii aadan garanaynin xilliga aad suuqan ka shaqaysanaysid way kugu adkaan doontaa inaad fahanti ama inaad lacag ka samaysid. Maxaa yeele suuq xiran oo kale haddaa imaatid wuu dhaqaaqayo male. Tusaale kale hadda suuqa weyn ee Bakaaraha waa suuq oo loo adeeg tago qof badeeco iibsanayo iyo qof badeeco soo iibsanayo waa tagay maaha. Marka waxaa jirta marka xilli uu suuqa furan yahay iyo xilli aan furnayn. Marka xilligii uu suuqa furnayn haddii aad dhahdid badeeca geena in laga iibsadaa rabaa ma lagaa iibsana maxaa yeele qofna ma joogo maaha. Si lamid ah marka forexiska isagana wuxuu leeyahay sessions ama suuqyo. Sidoo kale waxaa u hadli doonaa muuqaalka sessionada ama suuqyada ugu fiican ee suuqan lagu trade gareeyo. Sidoo kale muuqaalkan waxaa uga hadli maalmaha ugu fiican ee suuqan forexiska laga shaqeysto. Sidaa wada ognahay hore waxaa usoo sheegnay suuqan wuxuu furan yahay usbuucii 5 maalmood. Sidoo kale waxaan baran doonaa xilliyada aan munaasabka ahayn inaad suuqan trade gareysid. Sidoo kale iyo gunaanadkii ayaa qaadan doonaa. Haddii aan ku horumarno suuqyada forexiska. Suuqa forexiska waxaa u kala saari doonaa 4 suuq. 4ta suuq maxaa la kala lahaa waa Sydney Junction, Tokyo, London and New York. 4tan suuq ayaa jirto. Sometimes meelaha qaar labadan Sydney iyo Tokyo waxaa la isku dhahaa Asian Junction. Labadan Sydney iyo Tokyo waxaa la isku dhahaa Asian Junction. Sydney-ga waa suuqa Australiyada ah. Tokyo-dana waa suuqa Japaneeska ama lacagta yenka markaad trade gareynaysid. Marka marmar qaar waxay isku dhahayaan Asian Junction. London-kan waa markii lacagaha Yurubka iyo Pound-ka lacagta yuuraha wadamada Eurozone-ka iyo Pound-ka markaad trade gareynaysid. New York-na waa saacada Mareykanka oo inta waxaa lagu trade gareeyaa lacagaha CAD-ka iyo maxaa la dhahaa CAD-ka oo Canadian-ka ah iyo US dollar-ka. Marka 4tan suuq ayaa jirta suuqa forexiska. Sydney, Tokyo, London iyo New York. In isku soo duubo marka suuqyada marka dhammaantood maahan suuqyo isku mar wada furmaayo. Suuq walba wuxuu leeyahay waqti oo cayiman oo furan yahay iyo waqti uu xiran yahay. Tusaale hadda Sydney ama Tokyo oo la isku daro waxaa la isku dhahaa Asian Junction-ka. Asian Junction-ka waa suuq furmaayo 6dii habeenimo ilaa iyo wuxuu furan yahay 2dii subaxnimo. Marka Asian Junction aa la dhahaa. Markaasoo kale waxaa jirto beerar ama lacaga la trade gareeyo markaas iyo lacaga aan la trade gareynin. Sidoo kale London Junction-ka waa suuq isagana waa Ingiriiska ama London-ka wuxuu furmaa 4tii subaxnimo ilaa iyo 7dii fiidnimo ayuu ku egyahay isaga. New York Junction-kana isagana waa suuq furmo 10kii galabnimo ilaa iyo 5tii habeenimo ayuu ku egyahay isagana. Marka waa suuq dhammaantiis saas u furan. Waxaana muhiim ku ah inaad fahantid aana ogaatid suuqa xilliga aad galaysid xilliga aan galayn. Maxaa yeele haddii aad kombiyuutarkaas kasoo furatid aad jaad imaatid aad trade furatid oo aadan xilligaas suuqa uu furnayn wuu iska wareegi leh wax oo micno ma sameynayso waqtigaa kaaga dhuma meesha. Muhiimad ay leedahay inaad baratid ama inaad ogaatid suuqyada noocyada kala yihiin iyo xilliyada furan waxay kuu saamaxay inaadan waqtigaaga si maalayacni ah oo kaaga dhamaanin oo aadan kursiga ku daalin. Haddii hore ugu socono maadaama aan soo aragnay inay jiraan 4 suuq. 4ta suuqna aan kasoo wada hadalnay xilliyada ay furmayaan iyo xilliyada ay xirmayaan. Marxaladdan waxaa muhiim ah maadaama suuqyada ay kala duwan yihiin suuqyadee ugu wanaagsan oo aan lacag ka samayn karaa profit fiican waqtigeygana aan ugu manage gareyn karaa. 2 suuq aa ugu fiican waa London Junction-ka ama suuqa London-ka oo furmo 4tii subaxnimo ama 10kii subaxnimo ilaa iyo 4tii galabnimo. Iyo London and New York overlap. Waxaa laga wadaa markii suuqa London-ka uu furan yahay oo haddana sii furmo suuqa New York Junction-ka waa marka ugu badan oo suuqa uu leeyahay volume ama dhaqaaq aad u wanaagsan oo ay lacagay dhaqaaqi doonaan oo maxaa la dhahaa beerarkii si fiican u dhaqaaqayaan faa'iidana la sameynayo. Maxaa yeele markaas suuqa ma ku caajisaysid. Maxaa yeele volume fiicana jiro oo dhammaan labada suuq ee ugu fiican way furan yihiin
that's why marka labadaas London session inaad trade garaysid ama London and New York inaad trade garaysid oo ah xilli London uu furan yahay oo socdo in New York oo markaas sii furmaayo oo Mareykanka ah that time oo marka waa labada mar uu suuqa volume fiican leeyahay maadaama aan soo aragnay volume-ka xilliyada ugu fiican haddana marka waa inaan fahnaa maadaama aan nahay suuqan waa suuq furan isbuucii 5 maalmood waa inaan ogaanaa maxaa la dhahaa maalmaha ugu wanaagsan ee suuqan uu dhaqaaq leeyahay iyo maalmaha uusan dhaqaaq lahayn maalmaha horta ugu wanaagsan sida meesha ku muuqato waa maalmaha Talaadada, Arbacada iyo Khamiista waayo Isniinta iyo Jimcada ee suuqa dhaqaaqa u lahayn sababtoo ah Isniinta inta badan suuqa wuxuu sameeyaa waa isdiyaarinaa wuxuu isku diyaarinaa meel inuu aado ama dadka market makerska ah wuxuu isku diyaarinaa maadaama Isniinta shaqada ay kow tahay in maxaa la dhahaa iskaansha badan ka sameeyaan si meel ay suuqa ugu jiheeyaan soo marka inta badan Isniinta wuxuu suuqa haddii ama bottom uu sii sameysanaa ama meel liquidity uu buuxinaa ama maxaa la dhahaa support uu buuxinaa ama resistance so whatever ama range uu ku jiraa markaas dhammaan waxaasna waa baran doonaa marka suuqa inta badan maalinta Isniinta ah waa maalin uu suuqa isdiyaarin uu ku sameynayo Talaadada iyo Arbacada iyo Khamiistana waa maalmaha aad suuqa uu leeyahay volume fiican Jimcadana iyadana ma ahan maalin suuqa volume lahayn laakiin inta badan volume aad u yaryahay maxaa yeelay qof kasto usbuucii dhan ayuu soo shaqaynayay lacagtii uu samayn karaa hadduu faa'iido samaynayo hadduu khasaare samaynayo wuu haystaa waa maalinta ugu dambeysana suuqa nin walban wuxuu isku diyaarinaa Sabtida iyo Axadda holidays ama vacationkiisa sida u qaadanaya that's why marka dadkana suuqa trade gareynayo ay Jimcada ugu yar yihiin soo marka maalmaha ugu fiican waa maalinta oo Talaadada iyo Arbacada iyo Khamiista haddii aa hore u socdo marka dhammaan inta wuxuu kuu sheegaa deriska lacagaha iyo maalmaha ugu wanaagsan volume ay sameynayaan dhaqaaqooda ugu wanaagsan ayaa lahaa marka taas waa halkaas ugu gudbaynaa qaybteeni kale oo ahayd xilliyada aan munaasabka ahayn oo lagu baahnay inaan suuqan trade gareynin haddii aadan ogeyn xilli oo la trade gareeyo oo aad xilli kasta iska imaatid aad xilligaana trade gareyn ama xilligaana trade furana waxay kuu adkaanay inaad suuqan waqtigaagana si oo aan munaasab ahayn ayuu kaaga dhamaanaya marka waxaa muhiim ah marka inaad fahanto qodobadan oo ah inaadan xilliyadan aad suuqa trade gareyn maxaa ka mid ah xilliyada bangi holidayska markii uu jiro bangiyada markay fasaxa yihiin looma baahno inaad suuqa trade gareysid maxaa yeelay bangiyadu waa dadka suuqa qaajiyo maxaa yeelay adigu waxaa tahay retailer ma awood inaad suuqa meel u jiheysid waxa suuqan jiheeyo waa bangiska haddii marka bangiga aa u baahan tahay inaad lacagtiisa trade gareysid haddii bangiyadii marka ay fasax yihiin tusaale kale waxaa dhahday JBP USD aad trade gareyna JBP USD markaad trade gareysid labadan lacagood markaad waa trade gareyna haddii marka bangiga Ingiriiska iyo bangiga oo Mareykanka ay fasax yihiin suuqaas wax dhaqaajinaya ma laha waxay noqonaya marka inaad suuqa kor fiirsid oo wax natiijo aadan ka helin soo marka xilliyada ay fasax yihiin looma baahna inaad suuqa maxaa yeelay meel website laga bartaa jirto waa arki doonaa ayagana xilliyadaas muhiiman inaad trade gareysid sidoo kale waxaa muhiim ahayn inaadan trade gareynin oo lagaa baahan inaad xilligaas aad iska dhaaftid waa Friday afternoon oo weekendiga ama dhamaadka usbuucyadoo kale maalinta galabtii Jimcadoo kale marka la gaaro 11 saac ilaa 12 haddii la gaaro haddaa dhahdo waa trade gareyna wax natiija ma leh maxaa yeelay dhammaan suuqii wuxuu isku diyaarinaya xilli xiritaankiisii dadkii dhan suuqa way ka tageen bangi makerskii oo suuqii ama dadkii suuqa dhaqaajinayay way kala tageen soo marka wax natiijo ay maka sameynaysid xilliyada kale aan munaasabka inaadan trade qaadan end of December dhamaadka bisha December sababtan waxaa waaye saa wada ognahay inta badan reer galbeedka waa dad maxaa la dhahaa Christmas aado waa dad maxaa la dhahaa oo diimahooda noocaas tahay maadaama marka ay fasax wada aadayaan bangiyada fasax aadayaan qolo walbo wax kasta oo dowladeed ama wax kasta oo suuq aan ku tacalluqin dhammaan waxaa la wada aadaa fasax
xitaa dadka oo mentoriska waaweynka ama akademiyada waaweyn ama wax kasoo baranay dhammaantood xilligaas oo kale fasaxay wadaagaan qof walba wuxuu leeyahay aniga waxaa aadaa fasaxayga soo marka adina waxaa lagaa baahan yahay inaad fasaxaya soo qaad refreshment ka aadi si maxaa la dhahaa sanadka cusub aa ugu maatay adoo fresh marka looma baahna inaad Decemberka dhamaadkeeda oo ka daawanaysa inta badan 25 ee dhahaan oo Christmaska ah laakiin 10keeda 15teeda inta badan waa gabaabsi waaye sidoo kale xilliga oo loo baahnay inaadan trade gareynin waxaa ka mid ah xilli when angry or frustrated عشان markii aad tahay qof xanaaqsan ama qof niyad jabsan oo kale ama qof markaas dareemayo wax caabuqa xilligaas muhiim maahan mana mudno inaad suuq gashi ama aad trade garaysid sababtoo ah qofka mar alaala markuu xanaaqsan yahay mar alaala markuu niyad jabsan yahay adag tahay in uu go'aan saxan qaato that's why marka aa lagu leeyahay xilliyada xanaaqsantay ha trade garaynin ama suuq ha galin maxaa yeelay ma qaadan kartid go'aan wanaagsan si lacagtaadan akoonkaaga ay kuu soo garaysanto maskaxdaadana aysan buuq kale oo siyaado oo lacag aa khasaarto aysan dhibaato kugu sii noqonin xilliyadaas oo kale waa inaad suuqa banaanka istaagtid oo aad iska sugtid ilaa iyo arrimahaaga aad iska xalinaysid ama aad kusoo noqonaysid xaaladaadii normalka ah muhiimaan inaad trade garaysid xilligaas waa inaad banaanka istaagtaa suuqaas sidoo kale xilliyada aan suuqa munaasabka in la trade garo waxaa ka mid ah Asian Sessionka ama suuqyada Asianka oo ah Sydneyga iyo Tokyo oo laisku dhaha waxaa laisku dhahaa Asian Sessionka soo xilliyadaas inta badan suuqa ma lahan wax volume soo marka adina marka ma u baahnid inaad xilligaas waqtigaas kaga dhumisid sidoo kale xilliyada aan aadka oo looga taxadaro ee tahay inaad suuqa aadan trade garayn waxaa ka mid ah xilliyada lasoo daynayo newska ama akhbaaraadka ku saabsan lacagaha warbixinadooda haddii ay noqon lahayd inflationka oo interest rate-ka haddii ay noqon lahayd maxaa la dhahaa CPI-da consumer price index-ka dhammaan newsyadaas markay dowladaha soo daynayaan bangiyada ay soo daynayaan dowladaha inaadan trade garaynin sababtuna waxaa waaye newskaas ama warbixintaas ma ogid meeshay aadayso maxaa yeelay volume-ka aad ayuu u sareeyaa soo marka ma garanaysid xilli meesha uu aadayo hoos muu aadaa kor muu aadaa ma garanaysid lacagtan kor may u kacay hoos may aaday ma ogaan kartid soo marka xilligaas oo kale oo newska jiro waxaa kuu wanaagsan ilaa iyo aan newska aad si fiican ugu baranaysid badka dambe ma wanaagsana in news aad ku tareegaysid maxaa yeelay go'aanka newska siduu noqon doono ma ogid adiga sababtoo ah adiga ma tihid market makers ama playmaker ma tihid oo suuqa ma samaysid soo marka waxaa kuu qurux badan inaad banaanka istaagto sidoo kale xilliyada aan munaasabka ka mid ah xilliyada suuqa xirmayo haddii aad aad suuqii oo weekendigii oo ah maadaama 5 saac 6 saac uu xirmayo habeenkaas haddii aad aad 3 saac habeenimo trade furana so waa suuq xilli uu xirmayo waxba ma ka faa'iidaysid ayadana munaasab maan inaad suuqa aad trade garaysid ama aad hor fadhisid sidoo kale xilliyada kale waxaa ka mid ah overnight oo kale habeenkii xilliga dambe oo kale inaad aadi 7 saac soo kacaa 8 saac soo kacaa for me aniga ahaanteyda oo kale waa soo maray xilli waxaa jirta overnight waa waqti dambe inaad iska soo kaco computerkii furo aad trader raadina waxaa arki jiray 9 saac markii la gaaro inaa xoogaa ama 10kii salaadii markii loo dhow yahay in xoogaa soo qabato oo xaajis maxaa yeelay markaas suuqa maba suuq dhaqaaqayo maahan meel u socdo ma lahan soo marka wax natiijo ma lahan soo marka overnight kana ayadan iska ilaali so dhammaan qodobo muhiim ah inaad ogaatid si aadan waqtiga kaaga dhumin aysan waqti badan kaaga dhumin soo marka qodobadan waa inaad maskaxdaada ku haysaa waa inaad xasuusataa mar walbo ayna la socotaa marka taasaa leenahay marka waxaa kusoo gunaanudeyna marka conclusionkii ama waxyaalihii aan soo sheegnay oo cashir aan uga hadalnay oo ah trading sessionka xilliyada suuqa aan ku sheegnay Sydney ama Tokyo oo laisku dhaho Asianka London iyo New York xilliyada ugu fiican oo suuqa volatility-ga ama volume fiican uu leeyahay waa xilliga Londonka iyo London and New York overlap-ka sidoo kale maalmaha ugu wanaagsan ee suuqan volatility ama dhaqaaq fiican uu leeyahay waxaa ka mid ah Talaadada iyo Arbacada iyo Khamiista dhammaan waxaa rajeynaya
inaad taxanaha si fiican ula socotiin cashiradana aad iyo aad ugu ceshatiin. Haddii ay tahay markii kugu horeysay ee booqashada, waxaan kaa codsanaynaa inaad kusoo biirtid channelkana aad subscribe saartid. Haddii aad tahay asxaab hore noola joogtana, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka meel sare gaarsiisid, asxaabtaadana la wadaagtid, like, share iyo commenting ha ka marnaanin. waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan asxaabteena ku xiran channelkeena Fasoon FX. Kusoo dhawaada taxanaheena barashada suuqa Forex-ka qaybtiisii 6. qaybtan 6 waxaa uga hadli doonaa sida loo akhriyo charts-ka oo Forex-ka, qaabkii loo akhriyo ayaan ka baran doonaa qaybtan. Haddii ay tahay booqashadaadii koowaad, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe, like, share iyo comment. Haddii aad tahayna saaxiibada hore noola joogana, waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka support gareysid oo aad like iyo share taba aad ku xamirtid. Saa wada ognahay outline-keena saddexdan qodob oo hadli doonaa: line chart, bar chart iyo candlestick chart. Chart horta waxaa lahaa halkan ujeeda trading view waa kan website waaye. waa baran doonaa qaabkii loo sameeyo. kan midka aan isticmaalo waaye. insha Allah isagoo qurux badan insha Allah waa idin tusi doonaa. marka chartska waxaa lahaa chartkan kala duwan oo price-ka inuu kor aadayo, cagaarka ee guduudkan. qaabkii aa u akhrin lahayd ayaa go'aan ugu gaari lahayd si trade-kaas meesha u socdo aa ugu aaminsi ayaan baran doonaa. saa wada ognahay marka waxaa ugu hadli doonaa 3 qayb. chartiska marka oo trade oo forex waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood: inuu line chart noqdo, iyo inuu noqdo bar chart, iyo inuu noqdo candlestick. mid walba marka waa dul istaagi doonaa. line chart isaga waxaa waaye wuxuu ku siinaa fikir ah sida price-kan ama lacagtan ay isku bedelayso xilliyada kala duwan. intaas waxaa noogu jiro chart oo line chart ah. kan weyn waa tagi doonaa dollar. waxaa ujeedaa price-kan lacagtan inay inta istaagsaneyd ee inta imaatay. tan waxay ku tusay fikir ah inuu price-kii lacagtan isbedeshay, kor aaday. haddana hoos u soo noqday, kor aaday, hoos soo noqday, haddana kor aaday. markana marka waxaa lahaa line chart. kan waxaa lahaa marka line chart. tusaalaha markaa fiirino marka candlestick chartka markuu san yahay meeshaan ayaa laga bedelaa. kana marka wuxuu ku siinaa 3 option. hadda wuxuu noo yahay candlestick oo noo yahay maho kii saddexaad. waxaa ka dhiganaynaa line chart. saa wada ujeedin marka wuxuu ku siinaa marka lacagtan JBP USD waaye. time frame-ka aan joognana waa 4 hour. marka iyadu marka wuxuu ku siinaa line chart-ka price-kan qaabku isku bedelaa si aa u aamintid price-ka meeshuu aadayo. tusaale kale hadda saa ujeedid haddaan inta ka bilaabno, price-kan kor u aaday, xero hoos soo noqday, haddana kor u sii aaday, haddana hoos u soo noqday, haddana kor u aaday, kor haddana sii aaday, xero hoos soo noqday, kor u sii aaday. and then price-ka haddana intuu kasoo bilaabay hoos soo aadoo bilaabay. marka line-ka aan noocan aad ka dhigatid ayaa waxaa la dhahaa line chart aa la dhahaa. isaga marka fikirka ku siinaa waxaa waaye sida price-kan qiimaha oo isku bedelayo fikirkaas oo ku siinaa. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. midkan xigo waxaa la dhahaa bar chart. bar chart iyadana waxaa waaye waa data ay ku siinayso ama xog ku siinayso price-kan meeshiisa ugu sareysay iyo meeshiisa ugu horeysay uu gaaray. iyadoo marka kan tusaalaha waaye. kan waa tagi doonaa dollar. tusaale kale waxaa ujeedaa bar chart-ka noocan oo kale waa isaga. high-giisa waa kana, low-giisa waa kana. halka uu ka furmay iyo halka uu ka xirmay. this is marka price-ka bullish oo kor u socdo waaye. hadduu oo maxaa la dhahaa oo hoos socdana waa arki doonaa insha Allah. marka si kan ma fahmayno, kan weyn aan fahmi doonaa dollar meesha ayaa tagaa bar chart aa ka dooranaa. bar chart marka waa ujeedaa inuu ku siiyo maxaa la dhahaa ku siinaa shaqadaan ku siinaa waa in price-kii aa fiirisay isku bedelayo waqti ka dambeeyay. si chartka marka ugu fiican oo loo akhristo waa arki doonaa midka ugu fiican aan dooran doono. laakiin 3daas nooc ayaa jirta oo loo akhriyo. saa wada jeedin hadda hada zoom lana saa wada jeedin bar chart noocan waaye. channelkan hadda intuu kusoo furmay soo socday meeshaan uu ku xirmay, mid kale inta ka furmay, xoogaa hoos u soo aaday, haddana waa la celiyey, intuu haddana ku xirmay, haddana waa la furay, kor u aaday, wax yar hoos u soo aaday.
chatka marka noocan u akhrinaysi ayaa waxaa lahaa bar chat. Line chat iyo bar chat iyo candleska waa qofka Josh uu dooranayo qaabka uu price u akhrin doono. dadka dhan isku wada mid maaha. Qofaa wuxuu jecel yahay line chat inuu ka dhigto, qofaa wuxuu jecel yahay inuu candles ka dhigto, qofaa wuxuu jecel yahay inuu bar chat ka dhigto. So marka muhiimadda waxay tahay inaad fahantid qaabab kala duwan oo loo akhriyo chartiska suuqa forex-ka oo price-yadiisa inay jiraan, aysan jirin hal wax oo loo akhriyo. Midkeena saddexaad oo ah candlestick. Candlestick isaga muxuu keenaa marka data lamid xog lamid ah bar chart-ka, laakiin isaga wuu ka wanaagsan yahay. Wuxuu u wanaagsan yahay isaga wuxuu ku siinaa body uu ku siinaa, high-giisa ku siinaa, meeshuu ku xirmo ku siinaa, opening low-gi. So qurux badan yahay isaga bar chart. Markii aad fiiri kan iyo kan markaa isku fiirisay, so kana xoogaa indhahaaga si fiican u qaban karaan, ogaan kartid wixii dhacaayo. dib uu noqon marka kana markaan ka dhigno candleska isagaa dooranay. So loo jeedi price-ka wuxuu noqday marka mid qurux badan. So inta badan dadka oo trade gareeyo ama isticmaalo suuqan waxay isticmaalaan candlestick. Maxaa yeelay way u fududahay inuu qofkan go'aamiyo price-ka meeshuu jooga. Marka midka ugu wanaagsanaa marka waxay tahay candlestick. marka gunaanudkii waxaa ogaataa inay jirto saddex qaabab oo kala duwan oo loo akhriyo chartiska. Inaad line chart isticmaalaysid oo line chart wax ku go'aaminaysid ku trade gareynaysid, iyo inaadan line chart rabin oo bar chart isticmaashid sida kan oo kale bar chart sidani, ama inaa midka ugu wanaagsan oo inta badan dadka isticmaalaan in isticmaashiyo oo ah candlestick-ga halkan buy-gii sell-kii. Marka difference color-kan wax micno ma sameynayo, qof walba kalaro kala duwan uu isticmaalaa. So marka cashirkeenii maanta saddexdaas qodob horta ugu muhiimsan inaad fahantid chart-ka, trading view-gan iyo qaabkii loo sameystay. Insha Allah cashirada soo socda ku jirtaa maadaama gabagabadii basic aan mari doono, rajeynaynaa inaad wax badan ka wada fahantiin. qodobkeena ugu dambeeya oo ah faa'iidooyinka oo candlestick leeyahay. Candlestick horta saddex faa'iido leeyahay. saddexda faa'iido uu leeyahay waxaa waaye qofka oo marka uu bilaabayo inuu suuqan barto ama suuqa inuu falanqeeyo candlestick-ga ugu fudud. Sababta waxaa waaye suuqa markuu saan yahay qofka uu u fududahay inuu bilaaw yahay ama baranayo markaas inuu go'aamiyo oo dhaho suuqan kan kor u aaday kana hoos u soo aaday. Laakiin haddii qofkan online chart uu yahay oo kale, so qofkii bilaawga ahaa so confuse uu ka qaadaa. Maxay yihiin waxaan kan inta u socda maxaa waaye, so wax difference oo kala sooci kara ma jiro. Halka markay candlestick ay tahayna way u fududahay inuu difference helo. Faa'iidada labaad uu leeyahay waxaa waaye qofka inuu warbixin ka heli oo indhihiisa ay la qabsan karaan. Maxaa yeelay mar walba haddii indhaha ay la qabsadaan, tusaale oo kale suuqan kor u ahay wuu soo noqday intuu imaaday, meeshaan uu imaaday, canalkan rejection. Mar walba markaa aragtid dhacdo noocaane ama xaalad noocaane waxaa ogaanay inuu suuqan u soo yeeday. Sababta waxaa waaye indhahaagii ayaa la qabsadeen. Laakiin haddii suuqa oo noocan yahay, suuqa hadduu noocan yahay, so ma garanaysid wax oo adi aad ku kala saari kartid. Maxaa yeelay iyagii dhan xoogaa wax farqi weyn u dhexeeyo, xoogaa qofkii comfortable ku dareemayo, muuqaal ahaan ma qurxoono. Halka laakiin candlestick-ga uu ka qurux badan yahay labada kale. Marka faa'iidada labaad oo uu leeyahay waxaa waaye indhaha qofka ayaa si fudud ula qabsanayo. Faa'iidada saddexaad oo ugu dambeysa oo ah inuu qofka uu ogaan karo maxaa la ama uu fahmi karo suuqa markuu reversal sameynayo oo ah reversal waxaa waaye suuqa inuu kala wareegayo jihada u socdo iyo jihada kale. Si tusaale inta ku fiirnay suuqan tusaale oo kale aan saan oo ahay intuu hoos u soo aaday bullish uu sameeyey, haddana intuu back uu sameeyey oo retest ahayd haddana wuu baxay. So marka suuqa marka isagoo kor u socda aan ogahay sidee marka u dhigi karaa suuqan hoos u socda. Reversal waxaa waaye in suuqa jihada meeshuu u socdo maahane jihadii kale uu soo aado. So waxaas dhan waa baran doonaa kale midkaas confuse ha ku qaadin. So marka waxaa ogaataa marka suuqan rejection marka laga sameeyey, rejection multiple rejection ka dhacday, finally suuqa wuxuu bilaabay marka inuu kor meesha ugu socdo inuu bilaabo inuu hoos u soo socdo. You can see
بس waxaa la markaas inuu qofka fahmi karo ama la qabsan karo suuqa meelaha reversalka uu samaynayo qaabka uu u sameynayo. Cashirkeenii qaybtiisii saddexaad qaybtiisii lixaad intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe, like, share, comment. Haddii aad tahayna saaxiibada hore noola jooga waxaan kaa codsanaynaa inaad noo sii share garaysid. Aad iyo aad waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum.